kusoo dhaweyn doonaa madaxa dhalinyarta gudoomiyaha garabka dhalinyarta soo dhaw gudoomiyaha سلسفان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan halkan si aad iyo aad uga salaamayaa dhammaan marti sharafta xafladan ku sugan oo ay ugu horeeyaan gudoomiyaasha laamaha Yurub ee xisbiga kulmiye oo maanta halkan isugu yimi shirkan oo ay qaban qaabisay laanta Sweden ee xisbiga kulmiye oo juhdi badan iyo waqti badan ba gelisay sidii la isugu xiri lahaa laamaha xisbiga ee qaaradda Yurub inta markan ka soo gudbo anoo ku hadlaya afka dhalinyarada ee xisbiga kulmiye haddaanu nahay dhalinyarada reer Sweden ama dhalinyarada qaaradda Yurub markaanu aragnay sida ay ugu heelan tahay dawladdan ka dhalatay xisbiga kulmiye ee uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo sida ay ugu heelan tahay dhalinyarada uguna hormarinayso haddii ay noqoto xeerkii laga jabiyay dhalinyarada ee muddada dheer ku ahaa dabarka ee doorashadii 2012 dabayaaqadiisii dhacday lagu galay oo ay ku soo baxeen dhalinyaro fara badan oo dalka iminka ka ah badankoodu maayiro qabtayna wax qabad badan oo la mahadin karo markaanu aragnay sida ay ugu heelan tahay dhalinyarada xukuumaddu hadday noqoto xilalka uu magacaabo madaxweynuhu golaha wasiirada waa hadday agaasimayaal noqoto safiirada taasoo ah in la sii tababaro hogaankii Britoli markaanu aragnay sida ay xukuumaddu ugu heelan tahay dhalinyarada oo ay ka mid tahay ururada dhalinyarada hadday noqoto dalada guud ee dhalinyarada hadday noqoto laamaha gobolada ururada dhalinyarada oo ay xukuumaddu u samaysay guryo iyo meel ay ku shiraan oo ay ka mid tahay wax qabadka xukuumadda waxa naga go'an inaanu taageerno xukuumadda iyo xisbiga kulmiyada inta haddaan kaga gudbo waxaan halkan kaga dhawaaqayaa maanta guddidii laamaha dhalinyarada ee xisbiga kulmiye ee dalka Sweden hadday noqon lahayd guddidii guud iyo gudoomiyayaashii laamaha gobolada gudoomiyaha Stockholm Farxaan Salaabaan Tarabi Shiine gudoomiyaha dhalinyarada ee Yon Shopping Maxamed Sheekh Muuse xogayaha garabka dhalinyarada ee Sweden Liibaan Xasan Cali afhayeenka guud ee garabka dhalinyarada Guuleed Axmed gudoomiyaha dhalinyarada ee Urubro Khadar Yuusuf waxa yaraan kulankan la joogay laga maqan gudoomiyaha maalmo Cismaan Cawil iyo gudoomiyaha Fastriotland Ibrahim Shaaro haddaanu nahay dhalinyaro reer Somaliland ee ku nool dalka Sweden iyo qaaradda Yurub waxa naga go'an taageeridda tusaaleynta iyo toosinta xisbiga kulmiye waxaanu inta iyadoo dhalinyaraha iyo inta kale naga maqanayo isu bahaysanay taageeridda xisbiga kulmiye musharraxa madaxweynaha ee iminka ee xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay maalinta dhahareetay galo dhimaha hurub ka dhaqashiya galoofiyahay rag ka dhoofay baa jira ragii maalinta ka dhoofay baa maanta la tartamaya Muuse Biixi Cabdi oo dhiigiisa iyo dhacaankiisa dhiidkiisa u soo horay dalka dabardiga colaadada kaduu dhabiiltimo filo dhimashadiisa dhowr jeer noqotay wax la yiraahdo ninka dhiiran geeridu isaga la dhalatay maalintaas aad ugu dhiiranay dalka iyo dadkaba u hormariso ayaad maanta ugu dhiirantahay aad sidoo hormarisaa annana waxa naga go'an taageeridaada iyo tusaaleyntaada iyo toosinta xisbiga aqoonyahan hankiisa iyo hamigiisu dheeraad dalkiisa u soo horay halgankii xorriyadii alla hadafka guushiya ku hirgalay aqoonsiga aad baa u mahadsantiin dhammaantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh